bal ka waran daawade adoo safar ku jira haddii gaari xawaare sare ku socda ku soo dhaafo dabadeedna hortaada ku galgasho sida geel galgelin ku jira habaqan saaxiib gaarigana ma dhicin ee waa dheel oo kaliya macnahayga waa xaraabaysi bulshooyinka kala duwan ee dunida si gaar ah shakhsiyaadka iyo shirkadaha caanka ku ah tartanada xawaareynta gawaarida sida Formula 1 waxa xujo iyo ashqaraar ku noqotay wiilasha carbeed ee gawaarida soconaysa sida shilinka u wareejinaya gaariga soconayana banjarinaya mararka qaarkiis qaar kalena sida aakaha u ridaya waxayna dhalinyarada reer galbeedku la cajabeen habka ay baabuurta u wadaan wiilasha carbeed waxayna bilaabeen adeegsiga hashtagyo ay ku tilmaamayaan faytarnimada carabta sida power of bismillah ama awoodda marka bismillah dhaado waxayna sheegeen in carabtu aysan aqoonsanayn xagoodana uusan ka jirin wax gravity la dhaho ama physics aniga 120 haduu dhaafaba qaras baa igu kici lahaa intaan wareejinta la gaarin adigana ma aqaan driving waxa loo yaqaan in gaariga xawaare sareeya lagu soo kaxeeyo dabadeedna sida shilinka loo wareejiyo waa ciyaar caalamka oo idin laga yaqaan laakiin carabta gaar ahaan Sacuudiga oo ah meesha mushkiladda ugu badan ka taagan tahay waxa looga yaqaan tafxiid xagoodana waba ka caada dhaqameed soo jiitay 1970 waxa laga yaabaa inaad la yaabto sababta falkan khatarta ah oo damaashaadka ugu noqday daayarta carabta waxa dhacdooyinkan baasiin ku sii shubay kadib markii ay fan iyo xujo noqotay in wiilka aan gaariga sida garaanta u wareejin uu yahay maskiin aysan hablaha Sacuudigu salaanta ka qaadin sanadii 2023 oo kaliya in ka badan 1200 oo dhimasho iyo 20000 oo dhaawac ayaa laga diiwaan galiyay natiijada shilal ka dhashay baabuur wadida noocan oo kala ma ahan oo kaliya in falkani uu khatar gelinayo ka wada balse waxa uu sidoo kale khatar gelinaya nolosha dadka wadooyinka maraya ee aan waxba galabsan mar waa tartan lagu muujinaya xirfadda wadista gawaarida hase yeeshee waxay ka tarjumaysaa heerka tamashlayn ee ay carabtu gaareen dhacdadan waxay soo bilaabatay qiyaastii 1970 markii saliidda ama shidaalka ay la soo baxeen ayna horseeday lahaanshaha baabuur tiro badan jees kastoo carbeedna uu yeeshay gawaari V8 ah oo barafka ama yaanyada lagu doono oo kaliya inaga keen ugu roombaag haysta inta dhowr wiil dhinacyada iska soo taago kadib markii ay badatay khatarta ka dhalatay shilalkan qaar ka mid ah dawladaha khariijka ayaa joojiyay ciyaaraha noocan ah kuwa kalena laamiyo gaar ah ayayba u dhiseen si dhalinyaradu hibadooda ugu soo bandhigto waa heer la gaaro in gaari xanjadii ah loo soo iibsado oo kaliya in lagu baashaalo adigu sidan oo kale gaari cusub waa soo iibsatay ma wadi lahayd aniga kaxayn iska daayay tayradan jawaano u gelin lahaa si aysan uga soo khabiirada falanqeeya arrimaha dhaqan-dhaqaale ee bulshooyinka carabta waxay sheegeen inaysan jirin bulsho dhaqaale ahaan dihin oo sida carabta ugu baashaala hantidooda maalmahan waxaa dunida qabsaday hadalhayn ka dhalatay mawduucan oo lagu daabacay wakaaladaha wararka ee ugu waaweyn dunida iyadoo oo dhallaanka reer galbeedku la yaaban yihiin sida dhalinyarada khaliijka nolosha ugu kuftay magacaygu waa Saal Maxamed Cartan halkanina waa Cartan Times madal lagu soo bandhigo hal abuurka iyo dhiirigelinta bulshadeena afkaar dhay ah oo lagu dhisay akhlaaqda iyo